السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أحسابتي إذا شرفت إيه قيمة هي درجة ذله. وعنا لي رمضان الكريم أبي ونكسن ورمضان وحيجا قاعي مردويد إنترنت أو إيجا قليس حمد. مركا جيب جيب واحد دي سلام يا صاحب بيال سيديان دي سلام تري هيد قيمة هي قيمتنا هذه أدبن دي سلام يا جواهر إيه عبد الله يا عبدي عادل إيه عبد المحبين يا زكي كل جواز سلامية وعن ربع عاوة عدي لي يقول لي هل كان إنه كلها هذا الله عدي لي يرادو دولة ديننا وأنا دردارن سينو واحد بريها أنا مغليسين هو ها فرابضن أو يأور كعسي لقوا أور كعسنا يو قبيلة يو قرن يو قرن دمسلم موريان بس كان دقيسا هوية وحلا يرادو موريان هوينا ما ها سومالينا ما ها ملا كما soo gasho ibn xalaalna ma aha saan ugu aan qabo mooriyaan waa mooriyaan meel uu joogaba mooriyaantii baa doonaysa inay mar kale hadana saljuglan noo rido boorka yaraa in ka jafjafanaynay mooriyaan waa mooriyaan qabiilna ma ahan qabiil anaga waxaan la ah Soomaalida iyo muxuu ahaa isheeg samadoonka iyo inaynu gumaysiga iyo gunnimada ka kacno cid doonaysa aragtida caafimaadka qabtaan taas ay leedahay walaalkay maaha ninka aan jeclayn Soomaali istaagta walaalkay maaha ninka doonaya inaan maalin walba gun ahaado walaalkay maaha ninka doonaya inuu ugu danaysto walaalkay maaha ninka aan iga naxina idila markii isagu uu dan leeyahay ay walaashada walaalkay maaha qof danaysta ee dan gaar ah leh qofka aragtida taas ka duwan qabahna waa mangaab waxana leeyahay ha noqon awr la leeyahay oo la dhaansado waxaan leeyahay damiirkaaga kor u qaad iska dhig qof ibn aadan ah maskaxda ilaahay ku sameeyay adeegso ilaahay wuxuu ka duway xayawaanka oo idil hadaad si adigu iyadoo ilaahay ibn aadan ka dhigay aad idaha ka liidato idaha lax wan aad ka liidato waa ayaan daro ilaahayna waa ku qabsanaya sababtoo wuxuu ku qabsanaya allah qaadirka ay markii uu ka duwayay حيوانك حكمت بوجود شيء لكن هذا حكمت أذيك سنكري ويدو واحد إنكرتي علم جي له يكون سميه إفك وكوك هنا وعن لا يمركها وعلنا معها إنك الدنيا يوم أنت إن أوهب كوهايستو مقالة المقشة وإحنا كدلو هو وحبود دلاهي وعلم بدباديو هو كوه دلاه وأذيك سك الشيطان وكان لقوا بابئية ومدة وأنا كينا بابئية maalinba meel baynu maraynay maanta hadii aan han yeelanay aan ka gudubna wax badan oo ogtihiin ninka wali meeshii nala doonayahay waxba nooma aha aragtidayda waxayna ila tahay inaad ila qabtiin arrinkaas saga ah intaas waxa ii dheeriyay waxaan doonayaa dawladayda inaan mid u sheego shaydaanku waa shar badan yahay mana waayo irdo uu ka soo galo umada ma waayo meelo uu ka soo dhaco waxaana loo baahan yahay shaydaanka in sabab loo diido in shaydaanka sabab loo diido inta uu haysto sabab oo ka adkaan kariya waxaan leeyahay marka waxa la yiraahdo la qaado hubka hala ururiyo hubka sabab uu heli karaa shaydaanku iyo mooriyaanku waxaan leeyahay marka si taal looga gudbo waxaan codsanayaa in loo gudbo in baarlamaanka la hor dhigo qodobka hubka dhigista waxa la yiraahdo in dawladdu hubka gacanta ku dhigto oo gacanta dawladdu hubku galo waa in baarlamaanka la soo mariyaa si loo diido oo loo waayo sababayn uu mooriyaanku ku haysto ama tuugu ku haysto nagu awrkacsanaya yaa hawiya hey yaa tolo hey yaa hiraab hey aw curadkiyay balaayada iyo hooga la faraha ku gali maana la ehla ninka raba inuu maalin walba Soomaalida dhigo meel cidla inuu dhigo ninkii xabaal wuxuu ninkii dilayay unbaa u doodayay nabad bayow doonay ninkii dilayay unbaa wali u doodaya nabad bayow doonay marka anigu waxaan leeyahay waxba kuuma aha ehel kulama ahan ilaahay baa ilo danqaas uu leeyahay mooriyaan waxba nooma aha laakiin si uusan sabab u helin oo mangaabteena uusan u hantinin waa in aan u hela baarlamaanku qabiil baa lagu kicinaya baarlamaanka qabaa'ilkii oo dhan baa wada jooga hal hor dhigo qodobkan baarlamaanka waana in hubka meel walba laga howlgalaa oo qayb kasta oo Soomaaliya ah meel kasta oo ay naqatabo in hubka laga dhigaa not only one city not only one region
وين أود صارنا وعلى الشيطان كانوا دين سببه وحقول سبب كذبته شيطان كل يجيب مال وكوسه مرمويه وحنا ماشي ندقي وين قرنينا وهو هذا على وتوكعسيga beenta ah waa waxaan maartay dilay ku shar wax isku gumeeyna waraagan wax isku nahay hadii wax la isoo ahaanayo hadii aan qabiilnahay hadii ay qabiilku waa kan halka ay wadateena dhigay khayrna ma keeno xuma moogi marka hadda qaabka balse markaan ugu tagno meesha uu hadda leeyahay bal ilma adeerayaalow ilaahay baan idinku dhaarshay su'aalna weydiin qabiilka maanta nagula kicinayo yahay iyo yahiraabhay balan yahay meeshiisa ugu tago يعني ما هدي ما أنت عن هوينا علي مهدي أن كان يوذ ويدين علي مهدي أينو كان علي مهدي الجبي عيدي هذا لو كان يا هاي ولا غيرك لا هاي هو مية بالله صوم عليه فود قال ما كرتي ما كرتي أدوم مدحوينه ما لا لقطوه واهرة مركز اللي هو يسمى بك الله يا ويا تجي يو علي ما وحن كان هذا هذا عبد الغاسل الحسن عبد الغاسل الحسن عروة كاسي في الله ما حق لي يا يجي ما قبيل كلا يجي مسوي حير قبيل هوية وهرابيسم مركا عندنا هرابيسم بانوي منايا مركا ما يهبر قدريسم بانوي منايا ولا وردتكم يا الضمير إن عدتكم أضانا ضدكم يعني بي يو دعان يو ضدنيمو يو مسكح ابن آدم الحين وحال اللي في اللذا ماذا حمق جلين كرت يا ودي قبيل كلا هبر قدرها ودي فود ولا قلوي ولا قسوق قبي عبد الله يوسف بايمت عبد الله يوسف أنت رينجر لومر شيء هذا هي اللغة ما هو يوها ومايا أبتي أدر مكان بدلنا داها أما كل حمية هاي رينج كان هذا كومر رنك ور رينج يدو كلا دلبناي دم تجارك دم تجارك يعني هو يسمى لقى دقن يعني هرابيسم لقى دقن يعني هبر قدريم سلقى وبن وكذب ودن جار والله بالله تالله الضم باتين هذا كاسمك عندك كجذب هل كاسي مرتين هل كاس مركي مرتين محكمة عبد الله يسبقوا إيمانا يوقع يدونا محكمة يا جبش يا جبيه محكمة يا محكمة ده وانا قرنا كوي في الصومالية لقي عبد الله يوسف صور لقي يا حبشي أنا أقول مرة أحسن عبد الله يوسف لا يبرتو كوجع عليه واحد قصور كذا أنا أقول ننو حليني مرسلها هذا كور سيقو حرري على تاجن أيوة عليه ورفل الصومالي حبشي بس وقلي مركز عمامة سنك صارت أسر اليوم محكمة وضع سنك لا صارت عمامة مركز ما شاء الله يصوري يعني ومودي مثل يسوي كذا إن أركي سوق جاري حبشده وايد حبش جوا وراح حبش جوا نوع أصواتي اللي جرى حقيقة أنا سوق تغني يعني أنا حقيقة حرق ضي دبي هذا وجه حقيقة بعوش لكن حقيقة وحنو جسه هي برا الراح كل راح يستها حقيقة والله ما هران أنك قلت من هذا وريال شبيه إلى عد غيب جديد مثلا هنا ممكن كل لينا قبل الجدود قبل معدل يكون رأيه مدك رجع كل رجع محكمتها يعني أن حال مال أنا ذكر واحد نافع مركي لها طلقة ولاي برد كل هالشيء مركي لها حلقي لها شركي لقاطي عبد الجديد يونيك اللي هذا القدومين يونيك اللي هذا عثمان عطو يهدي له يكون يونيك اللي هذا I'm not sure ها يس يونيك اللي هذا اللي يكون معاه فرح جمعة واحد من الله معيشه الماء الريالو قدمك كسب حي سرعة من سنتين هم كان أيضا محكمة ده إنهم كل جوري شيء ودي بمينو بيل أو ما كان لقوه عير لقوه بيل ودي بمينو هم كان ورميان ما نتسابر كثير لوضعين ورميان هو يلا وضعين ورمعاه هذا إيه بنت هذاك الوضع قضية ورموريان كهذا الجيسو وبين لها وهوية ومدة لقوا بربرنا يدل كان ولا لقوا باب إيه الماء ذا الرجال حق قلب أنا نصيرنا حبشة صور السنة كله أزور أوف روحات سنك مرض أسرت أزوري وحا إن يسوع قرية أمحار هو كان يسوع قرية في الله أكثر وسجى مسكحية نسكية سجى سوق قياستي وقياستي سه أنا سيدان كوهاي نفتكر كم مكان ظاهر السعودية هاي إلى مركز السعودية مر إنه قرية الموضة وواحد كده جميل وهذا عدوله إيه ولا يا البنت إيه واحد أنتنا الدولة اللي قدام أدنى يسقى مدحوينا واي رئيس الوزراء واي وزير كوادن واي دوغا مغالدان واي دادس Soomaaliya kicmaysa waa burburinaya inuu yiraahdo aygu inuu yiraahdo Mooriyaanku waa dadantiisa laakiin adigu inaad ku raacdo ayaa waxay tahay ahbalnimo iyo waxa la dhigay walaalayaal aan ka soo gudbin ninkii shalay biladeed ku diiday
ninkii shalay dowladnimo caleemaha ku riday qabyaalad ku riday waxa ku warin ma adeerayaal ilaahay baan idin ku dhaarshay horta waxaan leeyahay kuwa sameynaya ugu dhowna waxaan leeyahay war ka soo noqda kuwa ugu heelinayana waxaan leeyahay addoon baa tihiin addoonnimada ka baxo oo ibni aadan caadiya noqda ilaahay baa idin sameeyey ibni aadan baa tihiin xigmad baa ilaahay dhulka idin keenay xigmad la'aan idinma keenin war xigmadda ilaahay ka faa'iida oo ilaahay baan idinku dhaarshay ibni aadan iska dhiga war yaan lagu yeelanin maskaxdaadu yay noqon maqsin lagula leeyahay oo lagula degan yahay kalaga yeela maskaxda soomaad gal waaya war calimaad yaa lagu riday war haddii lay ku rooyay cismaan cagta looga gooyo waad ugeydeen war caydiidaa lagu dilay war maxkamadihii baa lagu odweydoo lagu gumaaday war waxaanu wax jira maahane war yaan sixirka laydinka gadan waa saaxirin waa beenaalayaal waa dumiyayaal war qaran baa inoo dana war dal baa inoo dana war xorriyad baa inoo dana war qaxdan nooma aha war taariibdan nooma aha war isdil iyo dhiig iyo dhaawacdan nooma aha war qabiil baa intuba iyo awrkacsi beena baa lagu watay wallaahi danteenna maaha iyo bilaahi aan iska dhiga tirno aanna dhaga u yeelanno horumarka dowladnimada danta guud aan u yeelanno dhigo war hawiyeysam hadduu shaqaynayo hore uu shaqayn lahaa marka bal waa yahay wuxuu yidhi daal calasow hadda ayuu la fijiraa haa bal intaas yar wax ka soo qaato taasaaba waxay igu soo rid waa mahadsantahay in adeer yoka kigas waxaa la yidhi bal beenta la iska gadayday waxaa la dilay salaad gabayre geesigii hawiyaa la dilay geesigii hawiye ninka hadda dilayo ninka kelmadaas laho calasow dheere ayaa dilay dilkiisisa muxuu kala ahaa ma laba yayse yihiin labada nin calasow dheere oo ahaa haliyey soomaaliyeed oo la yaqaano oo dagaalkii 1977 uu cadarihii u dhigay aan ogayn ninkii dilay ilaahay baan kugu dhaarshay ma wuxuu u garaabayaa oo uu leeyahay waxaan u heelayaa salaad gabayre ilaahay baan idinku salaad gabayre kadii yaa kadaab ibn alxalal badan beenaale la been badan waxaasay rabaan inay ummadda ku qaldaano wax walba laga soo qaban karo meeshaas meel wallahi billahi inaan meel dhig ka doonay meel dhawaad ka soo helay kii salaad gabayre dilay salaad gabayre sharci baa lagu dilay maxkamad baa la keenay ninkii inta la kaxeeyay janankii inta la kaxeeyay generaal iyo generaal bay ahay inta la soo kaxeeyay naaga la dhexgeeyay aan cidna ka maqnin inta markaas wadatay magacaas wadatay inta ay googooyeen aad ogeydeen isagoo waryaa tolahay war moodan tol ahayna leh war walaalayaal dilina la googooynayay inta ilmaha loo dhiiba la yidhi biyana siiya dharjiyana oo macnaheedu yahay beerka kala baxa dila Soomaali gar makaasaa marka labada nin aniga muxuu salaad gabar ugu rul abgaal haddaad u haysato inuu yahay ahbal dameera ma ahane wallaahi kaana garaad dheer kaana maskax fog kaana caqli badan waa niman taye iyo dadnimo iyo dareen leh kumana kicin kartid huhaada beenta ah oo mid walba laga soo heli karo meel dhow waxaan ka soo saarayaa midka aad keentay beenta ah runtii soo agtaala taas ayaana afka kaaga jabinaya oo aan kaaga adkahay runta taariikhda runta ah ayaan aga taala waxaan hay soo jireen soo joogay waayo waxba ku qaadi maysid beenta mooryaannimada tuugada dhaca boobka dowladdiidka amxaar ugu adeega iyo Soomaali nacaybka aniga ayaa Soomaali ah Soomaaliyana Soomaali baale huha iyo beenina nagama gadanto waxaan soo joognay taariikh nagu filan waxaad geysatay hore ayaa macallin ku hor yaala looxana ku qoran horteena ku tiirsan markaasaanu aayad walba ku soo qaban karnaa yaa qaa'in ma wax waqtiga oo dambe iyo wax dambe oo taariikh iyo wax qiimaan nagu ma dhaxlihid waxaad agteena ka tahay nacalado ku dhacday oo boogale oo tuuga oo mooryaan ah oo Soomaali diid ah oo doonaya maalin walba berilaqo iyo boob iyo dil iyo ba iyo hoog iyo gumaysi oo gacan galno dhulkayaga barwaaqada ku taala dhaxda ka taala cidda aan kala soo bixi weynay carruurtaydu ay gaajo ugu go'ayaan annaga oo qaniya waa adiga kaana yeelimayno mar kale to waqtigaagii waa dhamaaday ilaahay idinkiis Soomaaliduna waxaan leeyahay ha u midowdo gunta dareen kala doonaysa in ay dadka walaalaha ah isku baabi'iyaan Soomaalinima ay deeqdaa Soomaali baan ahay waxaan leeyahay la ilaaha illa allah Muhammad Rasulullah qolaba calanke duwa ayno
inaga kanu waa ciirko kala oo aan caadna lahayn halla caashaqaye soomaaliya ha israacdo ha midowdo cadowgeeduna ha jabo damiir laawaha aan dareenka lahayn huuhaada faataadhugta beenaalayaasha waxqarrabayaasha wasaqda ee nala magac sheeganayana meelna waynaga soo jeedin doonaa waxaynu leenahay midnimadeennu ha waarto hana naga dhex baxo colaadsiga walaalku waxaanse ku dardaarmayaa dowladdayda qiimaha iyo darajada leh annagoo idin garab taagan fuliya sharciga ah hubka dhigista in aad baarlamaanka laga ansixiyo oo baarlamaanka la hoos geeyo ayna dhameeyaan si aynu uga gudubno ujeeddooyinka mooryaanka daydayga tuugga ah ee isku dayaya hadba inuu laba qabiil isku dilo oo aynu isgumaanno dooxno ayeeyayaasheen awowayaasheen ka soo ridno islaamaha uurka leh ee annaga naga dhashay caloosha oon ilmaheennu dibadda ku dhintaan iyagoo oon bila dhammaysan diida in aynu ku raacno waxa ay doonayaan oo ah qaxa iyo ma idinla tahay intan idin raaciye wallaahi bilaahi tallaahi 3 gabdhood iyo 3 wiil oo isla soo tahriibay oo Soomaaliyeed oo Liibiya soo maray in wiilal Soomaaliyeed Liibiya lagu kufsaday ayna gabdhahaas gabdha kamid yiraahdeen war intay wax walba maray ayna annaga nu kufsada oo wiilashayada daaya annaga oo gabdha ah nu kufsada oo wiilashayada balna meesha ay tagtay iyo aygan aygu dhalay bila laxawga ah bila damiirka ah bila dhaqanka ah ee wali doonaya in ummadda halkaas ku sii wado isagoo oo leh yaa reer hebelahay wariyaha wiyahay wariyaha hiraaba hay yaa kula hawiya yaa sokula hiraaba yaa habar gidirahay wariyaha kula habar gidira war cidina waxba kuma aha tuug dhalay dhaqankiisa ilaa aakhire ilaa adduunkan ilaahayna aakhirana waa kugu cadaabay adduunkana waxba iskuma ihin waxba isubanihin magacna iskuma lihin magacna ma wadaagno meel la iskama soo galno garac dhalay baa tahay wallaahi bilaahi tallahi ilaahow yaa dii anagaa dib u eega war qof aan wanaagba inaba allaha ka dhigay aanay gelayn inuu wax isku diro iyo inuu wax kala dilo mooyaane war maxaynu dadkaas war miyaynaan annagu ilaahay baan idinku dhaarshay aynaan inaba allaha ka dhigay damiir aanan lahayn war miyaynaan waxaan garan waxna isubanihin waxaanu waxsu noo karnaa marka tooba ka naqatee toobada Allah ku soo jeeday toobada waa ku seegtay rabadaan baynu ku jiraaye waa tooba seegtay toobada ilaahay dib u qabso Soomaalidana nacaybka iyo xumaanta iyo isku dirka iyo dilka iyo hooga iyo baa iyo qabyaaladda kida Soomaaliya ay midnimo waxaan hadalkayga ku soo koobayaa ninka doonaya in wiilasheenii la kufsado intay tahriib maraan waxa ay ku yihiin Soomaaliyay adigay ku taala waxaan idin leeyahay Soomaaliyay hubka qaata iska dhiciya nacasku dhalay noocaasa ilaashada dawladdiinnan meesha timi taasaa han iyo walaal iyo ehel kuma aha mooryaan oo wallaahi taariikhdaana qoraysa dawladnimo waxay tahayna waynu naqaanaa mooryaan wuxuuyaana waa naqaanaa huuhaa cidlaa iyo hoog wallaysan dhan inoo ahayn Soomaaliya dadnimo waxaan idin leeyahay marka Soomaaliya dadnimo ha inkirina ilaahay subxaanahu wa tacaala xigmaddii uu ifka inoo keenay ee uu inoo abuuray oo ah in aynu garanno waxa noo xun iyo waxa noo fiican balse dawladdayda waxaan farayaa shaydaan sida uu u waayo meel uu inoo soo maro war baarlamaanka mariya sharcigan arrinkuna ha ahaado mid walba meel walba ka falgala waa sax in aan dawladda jiri karin shacabkeeda oo hubaysan iyo iyadoo oo hubaysan islama socon karaan laakiin waxaan diidayaa wax uu sababsado inaba Allah ka dhigay khaa'ina waddankan soo jireenka ah ee 26 sano iyo in ka badan na dhex socdo waxaan rabnaa in aan saasoo kale booliisku noo dhex socdo oo aan qofka oyda qofka dhibaatoota inaba maartay nabadgelyadiisa sugnaato la nabadgeliyo laakiin ma rabno nin u dil laba u dil afar u dil reer hebelku dul danno ma aha waxa uu wadaana waa intaas hubka laga qaadi maayo iyo ilaahay baan idinku dhaarshay ninka doonaya maanta in waxaan sheegayaa ninka la yiraahdo maxal magaciisa ma $1 ay u bixiyeen oo aan ognahay intuu hawiye iyo habar gidir dilay maanta in hadawata hore idin ninkii dilayay umba u doodaye nabadba yow doonay ilaahay baan idinku dhaarshay
baa wuxuu doonayaa laba suuq in canshuur ka qaato wuxuu ku leeyahay cabdullaahi yuusuf ay keen war cabdullaahi yuusuf meeqa dowladaa ka dambaysa imsaa ka dambaysa cabdullaahi yuusuf meesha ay dhigay waxaan leeyahay dadka reer muqdisho dad qiimo u dhashay baa tiin oo aad u dulqaad badan laakiin dulqaadku marka halkan marayo waa in yac layska yidhahdaa waxgarad waa inaan waxgarad noqonnaa waa inaan dareen yeelannaa waxaan leeyahay marka wuxuu leeyahay waxaa la yidhi ciidan baa tahay kale ciidan kamid noqo waa diiday lacagtan rabo inuu iska qaato war suuqan canshuur kama qaadi karto meesha dowlad baa joogta may waa ka qaadaya car iyo car cabdi qaybdido ay ninkii u doonayay oo aad og tihiin oo mujrim aad wada taqaaniin ahlu naara oo aan ilaahay iyo ibni aadam islaama iyo soomaali toona agteeda wuxuu ka yahay aan ognahay oo ayaan daranoo weligiina duulaan uu qaado aan ku guulaysan nin aan naqaano weligiiba isku diraaha ku raagay hoog iyaba ku raagay isku dir reerkan aad sheeganaysiina hawiye isku dir war yaa dadka laayay war miyaanu ahayn ninka dadka laayay war miyaanu inkii maxkamadihii ilaahay baan idinku dharshay waxaad ogeydeen ka dhigay gobolladan galguduud iyo mudug amxaradu wadatay war walaalayaal oo ilaahay ka cabsada war caqli yeesha war xigmadda ilaahayna yaa laga tegin walaalayaal waa mar kaleeto iyo soomaaliya toos oo aan ku bilaayaba iyadana laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulallah soomaaliyay toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taagdaraney taageera weligiiney waxa aan tabanayana waa dila tuuga kiina walaalayaal ramadaan kariim aad baan idiin salaamaya waxaana idinku salaamaya jacaylkii weligay aan idin qabay waa walaalkiin isla daahir isla socdaal isla warkadoon salaam allah calaykum jamiican bye bye guys ramadaan kariim